xulka qaran ee Soomaaliya ayaa markasta si hagar la'aan loogu soo dhaweeyaa Jamhuuriyadda Djibouti haday noqoto dhinaca xukuumadda iyo dhinaca xiriirka kubadda cagta ee Djibouti iyadoo loo diyaariyo goobaha garoomada kubadda cagta ee ay ku qaadanayaan tababarada iyo haday noqoto goobaha seexadka ama deganaanshaha haddaba xulka qaran oo xilligan tababar joogto ah ku qaadanaya garoonkii hore kubadda cagta ee xaafadda lixaad ku yaalay loo yaqaan municipal ayaa tababarkaasi ciyaaraha iskugu diyaarinayeen waxa micno ka bixinaya xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahadcelinaynaa telefishinka caalamiga Universal oo runtii shaqo adag la hayo Soomaalida kala duwan dhammaan dhinac kastaba gaar ahaan kubadda cagta oo mahadcelinaynaa ta kadib halkan Djibouti ma ahan kulay markii ugu horeysay ama aan imaano ama aan ciyaar ku sameeyno ama aan tababar ku sameeyno ma ilaa iyo sanadkii 2004 wixii ka dambeeyay Djibouti waa aadan imaanaynay haddaan u soo noqdo kooxda hadda tababarka wada u jeedaan waxay Djibouti timid 15kii bishii Oktoobar ilaa ay haddana way joogaan sababta aan u nimidna waxay tahay in halkan lagu sameeyo tababar ama isdiyaarin inay ku sameeyaan maadaama la isku diyaarinayo tartankii kubadda cagta adduunka isreebkiisii ee sanadka 2014 di ilaa yiraahdo ka dhici doona Brazil kaas isreebkiisii ayaa bilowday oo qaaradda Afrika ka bilowday qaarad walbana iskeed ayay u sameynaysaa tartan ilaa la helo numbarka ugu dambeeya ee ka qayb galaya ciyaaraha adduunka sanadka 2014 isreebkan waa bilowga hore ugu koowaad waxaana nagu soo aadan la ciyaari doonaa hadii ilaa yiraahdo dalka Ethiopia ee aan dariskanahay waxaana ciyaartu dhici doontaa insha Allah 12 bisha November aan ku ciyaari doono Stade Guleed hadii ilaa yiraahdo waxa uu dhinaca kale xogayuhu si weyn mahad ugu soo jeediyay Jamhuuriyadda Djibouti oo uu tilmaamay inay had walba la garab joogto ciyaartooyga xulka qaran ee dalka Soomaaliya iyo ciyaaraha kaleba wixii heeliyo hooba ay u baahan yihiin Djibouti waxay noqotay hadda gurigeena kale ama ciyaaraha homekan ku ciyaarnaa oo horena looga aqbalay muddo aan wadnay sidaas marka meesha hadii home aad ku ciyaarisid haddana waxa ku qasbantaa inaad isku diyaariso meesha waana runtii arrin oo mudan in loogu mahad celiyo Jamhuuriyadda Djibouti dawladda oo madaxweynaha ugu horeeyo wasaaradda xiriirka kubadda cagta intaba marka imaashaheena halkan aan imid runtii waan ku faraxsanahay waligeena ku faraxsaneen soo dhaweynta hagar la'aanta ah iyo ciyaartooydeena maanta u jeedii tababarka ay sameynayaan oo aan cidna wax ku xireen macnaha taas ayaan wax la heli kareen runtii waana ugu mahad celinayna dhamaan xulka qaran ee dalka Soomaaliya ayaa waxa tababarkan u fidinaya macallin u dhashay dalka Kenya waxayna dhinacooga tilmaameen inay si weyn ugu rajo weyn yihiin inay ciyaarahaasi dhici doona guul ka soo hoyn doonaan oo ay qaateen tababaro wanaagsan tababarkan aan qaadanayno magaalada Djibouti waxa imaanay 17kii bishii 2 isbuuc ayaan tababar ku sameeynay subax iyo galaba tababar oo macallimiin fiican tababar fiican insiin tababar aad iyo aad u wanaagsan aan ku qaadanaa magaalada Djibouti magaalada xilka Ethiopia waa hadda ka hor waa la ciyaarna waa naga badisay anagana waa ka badinay aad iyo aad aan hadda iskugu diyaarinayna saan iskaga dhicileen guusha waxay ka qoran tahay xagga Ilaahay laakiin anaga culeyska waxaan saareynaa inaan ku guuleysano insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo xulka qaran ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay tababarkan sii wadayaan tan iyo intay la kulmi doonaan xulka qaran ee dalka Ethiopia iyagoo dhinac kalena muujiyay inay guul ka soo hoyn doonaan xulka qaran ee dalka Ethiopia taasna ay ka go'an tahay waxayna gees kala tilmaameen mas'uuliyiinta xulka qaran ee Soomaaliya waday in ay kaalinta quraatay ee haadan sida xilkasnimada u wada calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya inkastoo uu burbur dalkii ka jiro haddana ay taani ku noqonayeen niyad-jab ee ay wadi doonaan ciyaaraha kubadda cagta iyo natiijooyinka kala duwan iyo magaca ummadda Soomaaliyeed ee ay dunida dhex wadaan Ali Cabdullaahi Universal TV Djibouti